السلام عليكم asxaabta ay ku soo wada warka gudoomiye kubadda cagta ayaan soo qaadan doonaa waxaan igi doonaa akhbaaraadka gudoomiye ciyaaro ay ku jiraan isku aadkii koob kooxaha adduunka Manchester City Real Madrid iyo waxaan igi doonaa kabiirkii weynaaye Messi ilaa iyo Chelsea oo sanadka kan runtii isbedel weyn lagu arkayo war weyna soo wada waxaan igi doonaa arrimihii ugu dambeeyay Mohamed Salah iyo xaladii ugu dambeeyay Arsenal Cristiano Ronaldo youtuberka ayaantan asxaabtay subscribe ka noo saaro ku channelka cusub ku jiray share tayo like tan isku dirkan saxabta la ciyaaro jecel bal barnaamijkeenu gaarsiina wadi salaam saacada maqarkii baan igi doonaa tarkaabkeenu guud galin aan u duceyno walaalnimada ku dulqaaday iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed bal warkii baan u eegi doonaa runtii warkan waxa ugu weyn habeen wuxuu ahaay isku aadka koobka kooxaha adduunka la sameeyay el phenomenon Ronaldo Burna Brazil ayaa loo wacay madaxweynaha FIFA Infantino waa halka joogay kulay wax weeyaan isku aadka waxa laga soo calaamadeeyay kabiirka weyn ee Messi in uu ku beegmay sanadkan koobka kooxaha adduunka kooxaha FC Porto Palmeiras iyo Al Ahly Everton iyo Riyad Mahrez iyo Firmin iyo ay isqabanayaan runtii ninkii Messi ahaa marka waxa weeyaan Messi xogaa markii ayaan wareega laga soo kala baxo xogaa series baasha looga dhigay mooyaane wala ku reer Europe Porto iyo Palmeiras aan basalanin ani miyaan waa arkay ya waxa weeyaan hadii la dhuruujinay ma sheegin Porto iyo Palmeiras iyo ugu baqayaaba maaludna mar bay Nasr la ciyaartay jawaan gool laga dhaliyay Al Ahly iminku hataa isku beegmeen marka Messi Porto Palmeiras iyo Al Ahly buu ku beegmay asaga wax weeyaan sanadkan waa lagu soo diray koobka inkastoo badan ay yiraahdeen Messi wax weeyaan waxa lagu keenay meesha af Soomaali sababtoo ah inkastoo tartanka wadankooda lagu qabanayo ayaa loo keenay moogta hadana koobkii Shieldiga ku guuleysteen marka waa tuu habeenkii madaxweynaha FIFA halka tagay Messi meesha kaga dhawaaqay sanadkan Inter Miami ciyaaraha ka qayb galayso dhinacyada waaweyn Manchester City ayana waxa ay group noqotay runtii kooxaha kubadda cagta Juventus oo ay todobaadkan Champions League la ciyaari doonaan iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Wydad iyo Al Ain Real Madrid oo kale waxa weeyaan oo Champions League koobkan kooxaha adduunka ku balansan waa nimanka 10kii sano ugu dambeeyay koobka kooxaha adduunka macnaha la ciyaaray 5 jeer oo kamid ah qaaday Real Madrid waxay ku beegmatay Salzburg الهلال يجي نيمار باسكو يجي نيمار باسكو ريمان دونو نيمار ريال مدريد او markii uu Barca joogi jiray luculaadi jiray ayuu ragaabo ka hor imaanaya balna su'aadaha waxa la sheegaya in Koulibaly kooxda laga saaray si asaga loo diiwaan geliyo marka waa ka Vinicius Junior hataa iska hor imaan doonaan runtii iyo kooxda kale ee yar ba Madrid lagu beegay Inter Milan Monterrey ay group ku tahay dhankan Atletico Madrid waxay ku group tahay PSG Botafogo Bayern Munchen waxay ku group tahay Benfica Chelsea iyagu wuxuu group yihiin Flamengo waxa weeyaan waxay iska hor imaanayaan laacibkoodii hore ee David Luiz bay iska hor imaan doonaan Blue marka iyo Club Lyon ku leeyahay runtii marka isku aadku sida ay u dhacay runtii koobka kooxaha adduunka waxa lagu wadaa in la ciyaaro runtii marka la gaaro June iyo July baa la filayaa runtii in ciyaarahan la ciyaari doono runtii Neymar in uu wajihi doono runtii Kylian Mbappe iyo oo ragii biish xataa iskala mid ahaayeen kamid aha iyo finish oo hadda ay mataqaan isku wada yihiin marka ciyaarahan waxa la bilaabayaa 15 June ilaa waxay soconayaan kaliya 13 July bay soconayaan marka marka ciyaaraha koobka adduunka ayaa habeenka ugu weynaayo aad loo hadalay nimanka Chelsea hadda saacad gudumay koobka adduunka isku aadku ku jiray hataa moogtay tartankaasi Chelsea u doonaysa hataa waxaad ku arkaysaa Palmer lama ciyaarsiyo koobka Conference League Palmer kaliya wuxuu ciyaaraa horyaalka iyo koobka kale Ingiriiska laga ciyaaro ayuu ciyaaraa koobkaas waxa shaqadiisa qabsanooyay in Kunku oo sisaka ninka Chelsea ugu goolasho badan ah oo leeyahay tababaraha waa ninkaas inuu Janis siiyay runtii habeenka xalay ana gool u dhalay runtii marka Palmer ciyaarahaas dhan mal ciyaarsiyo koobkan kooxaha adduunka loo nasiinaya waliba Chelsea ayaantan isbedel weyn baa lagu arkay Chelsea caafimaad weyn ka muuqda Chelsea Tottenham hadda ciyaarayso iska saartay hadda gool lagu leeyahay arkaya Banmuda kule kuwaan wali hata goolaydu ka dhaawacan yahay Chelsea de kuwaan dhaafan Tottenham day dhaafan walo markay reer London ku isla ciyaarayaan hada isbuucdan waa derby London baa jiri doona Fulham iyo Arsenal Tottenham iyo nimankan raado Tottenham iyo Chelsea adi waxa weeyaan Chelsea de kulankan dhaafto warkeedu waa weyn waa ninka Maresca raado Italiyaanka ani Chelsea markii Italiyaanka imaan jiray waxaan ku dhihi jiray Italian Chelsea meel u wadaan waraada kor Antonio Conte kasten horyaalka dhan hor Sisku suuro u qaaday hada slot Sisku marbi inuu qaado xaaladaha la soo dhaafay dadka xaaladii la soo dhaafay saacad ugu dambeeyay ay xogaa dadka guri soo galeen laakiin waad arkaysaan ninka raad Sisku guri inuu rabaa in horyaalka ku qaado laga dakor Antonio Conte la keenay ayuu horyaalkii dhama anagoo daawanayna leh gool alla waa duldul ku qaaday al duldul ay noqday af Soomaali bacteria hatta saakeen alaabtan oo saxda gadaal saas loo buuxinayo asaakensaday hadda maanta loo adeegsanayo shaxdiisi Italian u ahaa way maad hor ka qaaday koobka
warar fajista oo Chelsea loo dhiibay waa aamin inuu marka ninka warkiini doono war hadda ka hor Champions League waa ka harireebeen oo dhamaatay ay taagneed groupka asala keen dimatayo loo dhiibay Abramovich wuxuu ahaa ninkii Facebook ba xilka ayaa hay baan qiyaasaya kadib waa loo dhiibay Champions League Chelsea qaaday Champions League ugu horeeyay Chelsea qaadaysay ninkaas Italiyaanka qaaday waa yimaaday af Soomaaligiisa daf hadda kan waa Italiyaan ninkan mujeedaan runtii 6 bilood ayuu Chelsea joogaa imikana kaalinta labaad kooxda ayuu geeyay waa isdabaalina wuxuu ku leeyahay ma anaga tartan ku jirno waa iska shaqoleed macna af Soomaali wada yani waxa tartiibkiisa barashar kooxda ka qaado ro macna tartiib waxa loo istaamir maalid waxa la Balmer idinka la horyaalka walidi ka tagay war wuxuu December baa la maraya yaa isgaaruur macna hunguriga ku jiro wiilasha Chelsea marka ninkan uu ka fiican yahay tababaryaashii hada ninka la yiraahdo markuu jooga xaga la soo Pochettino فيري marka loo bariga xaga la sraf iminku Chelsea 9 dhibcood bay ka fiican tahay xaga inta xiligan kale haysteen marka 14 kulan horyaalka la ciyaaray xaga xiligan kale Boston aad ay joogeen already 5 gool dar haysteen afar baraaji 5 gool 9 dhibcood haysteen laakiin marka sigan loo bardhigo already kaliya Chelsea 2 gool dar ku dhacday afar baraaji 8 ay badiyeen waxa weeyaan Blue Boston ay joogaan dhibca ka fiican xaga horsta 5 dhibcood bay iminku marayaan marka xagagan nimanka la rubaa ka muuqdo marka kaliya ninka 6 bilood kooxda la joogo horyaalka kaalinta labaad ayuu ka joogaa waliba Chelsea xagagan waa seasonkeeda ugu fiicnaa historiga Chelsea ay san u madax fududaato goal fardis xali todoba ciyaarood oo seasonkan kamid ay Chelsea waxay ku badanaysaa 4 gool ka badan 5 gool ku badanaysaa Ferry seasonkan historiga manu sameyn Chelsea yaashii hore la soo arkay tamanu sameyn 22 kulan seasonkan 57 gool ay marayaan Blue waa seasonkooda ugu gool badnaa weeyaan ever ay Chelsea u shaqaynayso marka Chelsea ninka ku sirmaayo oo isdhahay Chelsea wali galab waaye waa siran tahay Chelsea waa soo caafimaaday war iska jira mid kale xataa Premier League season nimanka Liverpool ana ma ka yaabay ma ka yaaba ma ka caabsada oo mid dheer Liverpool balaayo ma dhaha wala gool badan yahay war Chelsea balaayo real waa war Chelsea wax kale waa war iska fiiri Chelsea waa socdaan Chelsea waa soo caafimaaday season kan Blue waxay istaa gool ka badan cid kasta Premier League Liverpool ay sheegaysiin ee weerarka culus season waxay dhaliyaan 9 gool Chelsea diko gool ay dhaliyaan waa kooxda ugu gool liska badan weeyaan season kan horyaalka kan ee Premier League weeyaan runtii marka Blue wax kale weeyaan waliba sababta waxaan arkay Eden Hazard wuxuu leeyahay Chelsea sanadkan way soo caafimaaday sanadkan wuxuu wiilka dhan waa wiilkayga iga ooynay waa ogtahay markii odagu Chelsea ciyaarayo ilmuhuna Blue bay taageerayaan marka ilmaha waxay ku soo barbaareen taageernimada kooxda Chelsea wuxuu leeyahay wiilkayga Leo Hazard ka asagu dhalay wuxuu leeyahay xaga la soo dhaafay depression ku dhacay maxaa yeelay asagu waa taageero Chelsea oo waalan weeyaan buur macna xaga la soo dhaafay madax xanuun buu ka qaaday ciyaar kastana wuu ooynay soo markuu arko Chelsea problemkay ku jirtay kuma raaxaysan wiilkii xaga la soo dhaafay baniga Blue laakiin sidoo kan wuu ku raaxaysanaya waa ka Blue ay ka xasan tahay intaasna waa inta marka Chelsea qatar waa midda kale wax weeyaan dhankan Liverpool waxa la sheegay Ibrahim Kanouté heshiis cusub ay ka siixanayaan Mohamed Salah ta warba saacad ugu dambeeyay muujinay in heshiis hal sano oo Liverpool qalanka ugu doogi doono maadaama Liverpool ayaan awoodi karin sanado badan ninka inay siiyaan ugu yaraan saacabaad ka badbadiyay warooda ku hay maalmo waxa ninkan qaylo ka badatay ninka waa qaylinaya loo cimamado taageerayaasha xataa xalay waxay yiraahdeen xalarta dil badilay Liverpool ay badilayd maanta jawaan lacag caadi loo keenay Mohamed Salah dad baba xalay markay 3 gool uu baasha ka dhigay ee 2-3 ay marayso goolaha khalad galay xuslaa kubadu waxa weeyaan foori u daa waqtiga dhamay amal inna meesh ka soo baxay wuf yaa cunuga xal khalad u galay laakiin xalay markay 3 loo baashi maraysay caalamkana wuxuu ma taqaana war Mohamed Salah wuxuu rabaa la siiyo lacag tuuro Mohamed Salah la siiyo rimna saawudna waxa arkay tobar Liverpool wuxuu la ma taqaana yaa midda Mohamed Salah waxaan ka rajaynaynaa banigan waqti dheer baan ka rajaynaynaa long term yaan ka rajaynaynaa walaal ma fahmaysa marka waxa weeyaan dadkan macnaam ku dhahay heshiisan ka sixirna si Soomaaliya wax ku goosgilna macna si maldahan war ku sheegay marka Mohamed Salah warka daraad la sheegay hal sano laga sii doono macalinkan uu muujiyo ninkan waqti dheer ayaa midaan ka doonin macna ma fahmis kartaa waqti dheer markuu la joogo markuu yiraahdo waxay ka dhigan tahay sanad kale uu sii joogayaayo Ibrahim Heshiis baa laga sii xalay runtii Arnold iyo Van Dijk waa loo jeesan doonaa runtii walow Arnold gafuurku uu taagtaagayo Madrido ahaa ninkii yaa basaraynaya Jude Bellingham ahaa asaga xaga dambe inay free ku qaataan Van Dijk khudis waa free marka waa arki doona adiga laakiin marba waxay warar maalintu sheegayeen ugu yaraan Liverpool saddexdooda fariiga ah laba kamid way cilinayaan ama Van Dijk iyo Mohamed Al Cilna Arnold baxay sida u badan tahay weeyaan runtii waa ka mid kale ninka Mohamed Salah la yiraahdo December 5 la maraya already second 12 gool waa caawiyay 15 waa dhalay war Mohamed tartamada dhan war Mohamed Salah imaamadii sanadkan lama haysan karo aad u halis u yahay maxay tahay cunugi waa in la yiraahday xalay Liverpool markaan remote kala aadayaba yaa waxaan arkayaa Mohamed Salah fudaad season kan suu u kacsan yahay Mohamed waligiis umaanu kicin yaa marka haduu sanadkan Africa Nation ku darsado asaga idigu as leeyahay Mohamed iyo Afrikaan tam oo aadam ma dhaafad leeyahay ma dhaafa
maxamed saalax wuu ceebeysan yahay idinku waxaa rabteen liverpool cunugna ku xamaalatiin aratiin cunugaas asaga iyo Neymar iyo dadka ceebeysan ayuu ku jiraa maxamed saalax wuxuu soo maraya heerkii Messi uu mari jiray maraya wuxuu ku ceebeysan yahay wadankiisa Ahmed Mido iyo Amir Zaki iyo Husni Abdul Rabbi iyo Maxamed Abu Tarika iyo Wail Jumca iyo ya Al-Hadari iyo warkan ku tirnay waragii 2008 iyo adduunka qabsa Africa Nation qabsaday ee dhowrsan iska qaaday weeyaan maxamed saalax historigaas ayaa laga rabaa maxamed saalax wiil wax koobka ma guuleysan wadankiisa marka idinkan waxa leeyahay maxamed muu naga joogo hadda waxa idinku gaagaado waxa waa maxamed saalax Afrika uu aadaa soddonkan December dhamaadkeeda Afrika uu aadaa markaas waxa leeyahay Liverpool ilmaha xataa markaas waa lagu celi karaa waana sax Liverpool ninka jida ninkan waa wariya 15 uu sikan dhaliyay 12 ayuu caawi marka ninkaas tuu maqan yahay hadii xaalad san isiga daba dhawaato horta ku kala dima yaalan hada Everton la ciyaar doonto isbuuc soo socda hadii bahasha iyadoo saan lisleh maxamed uu galbado oo todoba la horeysiin asirin kaas jirin kay jir maxamed wara jiri doon asiri wiishka le hayero oo dhii jirin kay jiro ya marka maxamed waa socday maxamed xataa intii iska joogo maxamed waa ceebeysan yahay dadkaas aan ku soo tiri wadankooda success bay la gaareen guulooyin bay la sameeyeen wuxuu la sameeyay malaha asaga Neymar waa niman fataliyaal weeyaanba oo marada ka dhacsan tahay oo wadankooda aan wax guulo la gaarin marka intuu marka maanta rabo inuu Liverpool koob la qaado wax ka badan waxay tahay inuu la qaado wadankiisa wariyamaane historical uu sameeyay gal markuu uu koobka la qaaday asaga wali maxamed saalax waxba ma hayo marka maxamed saalax marka wuxuu ka jecel yahay hataa inuu ku jawaabo sanadkii la soo dhaafay lugaha looga soo jiibay meesha intuu isdhahay koobkan soo qaad waa la soo diray haddana macnaha sidii kale is ilaalis ma jirto maxamed saalax meesha ku jabi kariyaa le macnaha si wadankiisa koobkaas ugu qaado marka cala iyo xaal waxa weeyaan maxamed ayaanta wadnaha dhagleeb ku hayaa ar maxamedkii goormuu naga baxay isleediin runtii marka maxamed siisan fiican buu ku jiraa waliba ninkan Premier League saacad ugu dambeeyay Haaland waxa la riwaal la kala tagay Arsenal maalada dhaga laga qabtay Alriya ani kulanka markii Man City la ku ciyaarayeen Liverpool wariya mar dhow ku dhaafaya baa la rimnaa waana ka wal dhaafay 3 gool la maraya iyo 12 kala joogan runtii maxamed caadi maahan waliba ninkan waa ciyaaryahanka ugu fiicnaa Premier League soo maray marka ay noqoto ciyaar gudaheeda in laga noqdo boss mudane in laga noqdo ciyaaraha mudane maxaa la yiraahdaa waa ninka goolka dhalinaya caawinaya qaybinaya banooniga ay dhan asaga dhan wax ku tirsan tahay ninkan waa boss waa mudanihii ugu fiicnaa ee Premier League taariikhda soo maray marka la arko gool in la dhaliyo ciyaar gudaheeda gool in la caawiyo boss yaa noqon kara waa ninka goolna ku dhalinaya goolna ku caawinaya kubadna ku abuuraya mada waa booska kubadda cagta Premier League soo maray Everton rekoorkaas waxa haystay boosnimo ee garoonka in boos laga noqdo ninka la yiraahdo Rooney 36 jeer ayuu taariikhda ka sameeyay in ciyaar uu ciyaaray gool uu ka dhaliyo gool uu ka caawiyo laakiin imika Maxamed Saalax ka batay 37 jeer ayuu midaa sameeyay Rooney 36 على لغة روني وأنا فريست مقتاي تاريخ ده رئيس دلوا سمي روني سديلح آلان شير سديكو أندري كول لامبات دي بروينيا وحاصلون أركيسان وحكلو رجع بهش بوسني ماذا نينكل رد محمدو ولا بنين كان بيج جيم بلاير وياه يا نين كان بيج نيوكاسل حكمتها كوحاد بديان شوه أيضا أنتو كده لا يكعوي مركلا فيري أرسنال يعني سيسي كمركلا جودها مركلا تو كوح بدم كوحاوي كوها يستعي سيسي قال صورة في التضوع عيار لصورة في تضيع عاد ودن بي جيرسي وكدلو كعاوي ارسنال وكدلي برايتون وكدلي استون فيلا وكدلو كعاوي سودهامبتون لبا جول وكدلي مان سيتي وكدلو كعاوي كون نيوكاسل لبا وكدلو كعاوي ninkan waa mudane ugu fiicnaa taariikhda Premier League soo maray ee garoonka boos ka noqda waliba saacad ugu dambeeyay asaga iyo Thierry Henry iyo Aguero ayaa hardamay taariikhda Premier League laga dhaliyo ama laga dhaliyo 130 gool lagu dhaliyo kulamo yar ya Henry waxa ku qaadatay 100 Aguero waxa ku qaadatay 104 gool waxa ku qaadatay 235 kulan Henry waxay ku qaadatay 135 gool inuu ka dhaliyo Premier League 258 kulan Maxamed Saalax iminku wuxuu soo maray 170 gool ayuu soo maray wuxuu ku qaadatay 207 Maxamed Saalax mar dhow Henry ayuu ka sar maraya sidoo kale Lampard buu u dhow yahay Maxamed Saalax Real kana duu sanad kale sii joogo hubaal asaga iyo Rooney iyo Alan Shearer isku isdaba socon doona ya ugu yaraan Rooney waa ninka la taariikhda Premier League ugu gool badan Maxamed Saalax waa gaari doona ya marka waxa weeyaan all time markaad fiirsana all time Premier League goal score markaad fiirsana Alan Shearer asaga waxa weeyaan 260 gool weeyaan Harry Kane 263 uu ku tagay wuxuu raashaqada inuu markale u soo laabto duu Ingiriis ku soo laabto Rooney 208 uu jooga fiiriya Maxamed Saalax iminku wuxuu soo maraya 208 uu Rooney joogo Maxamed iminku wuxuu soo maraya 170 ya 170 ayuu Maxamed soo maraya xoogaa ninkaasna 208 uu maraya Kane 283 uu maraya ninka kale Shearer 260 uu maraya marka Maxamed Saalax
waxa weeyaan ma xuma dadaal baa meesha waliba sanada kale Liverpool sii joogay marka ugu yaraan u dhawaanay horteen ri lambad waa dhaafaya marka intaasna waa intaayo kolay waxa weeyaan saacad ugu dambeeyna Arteta wuxuu xaqiijiyay in Gabriel ciyaartii West Ham ba uu xanuun ku ciyaaray laakiin ciyaarta isbuucan ay Arsenal Fulham la ciyaari doonto ready weeyaan buu asaga iyo Calviori midda kale Barcelona waa teamka kaliya siisa horyaalada Yurub ugu weyn laba ciyaaryahan iyaga ka tirsan ay horyaalka leeyihiin 10 gool ka badan Lewandowski 5 Rafinha 11 Barcelona aad bay u kacsan tahay saacad ugu dambeeyay Real Madrid oo kubtay midda kalena ninka Ronaldo ayaantan marna waa player marna waa youtuber moogta asaga ayaantan howl kale uu haya Beast ayuu dalbaday anigu wata idin dhahay Master Beast iyo cunuga la yiraahdo Speed saaxiibo Ronaldo waa lagu soo dhisaa Speed ana waa macnaheedu Speed wuxuu leeyahay Real Madrid lahaa Speed wuxuu leeyahay Master Beast iyo oday iga gaarsiino macna ninkaas ciidamad waa dhahdaad wareystid amalno ninkaas taaqab waa wareystid waxa ku jirta inuu Speed macna Mr Beast ilaa Ronaldo janaalkan sad u kicisid dad waaweyn oo famous inaad keentaa laga rabaa sida Speed oo kale meeshu ka sheegaba saacadu marka Speed oo markaas Ronaldo ku waalna Ronaldo inkaas cunuga mar uu la kulmay xogaa Ronaldo cunuga yaani ciidamad saas ma ku tuuro wayaan Speed saacadu marka isna wuxuu qishay in asaga iyo Mr Beast iyo Ronaldo ay isku group yihiin macnaha WhatsApp group ay sameysteen marka waxa arkaysaa qoraal uu Mr Beast ku leeyahay Speed macnaha cunuga baasano Ronaldo waxa la mintaqana Ronaldo cunugan Speed waaye streamerada ugu fiican adduunka oo barnaamijyada live ka sameeyay qatarka ayuu kamid yahay wuxuu rabaa inuu ku raadahay waxa marka cunuga hata ma soo joogay hata intaas ka badan هاي سبيد سجوا مركو رونالدو waxa weeyaan waa Speed amal waxaan kulnay sanad kala soo dhaafay waxaan rabay inaan ku raadahay waxaan rajaynayaa inaan dhawaan kulmi doono dib u kulmi doono marka waxay warku u muuqdaan Ronaldo dan Speed inuu keeni doono ninka YouTuber waa ninka YouTuber noqday YouTube soo shidanaya Speed hatta Ronaldo waa ka maarmi way walow maalid uu yiri aniga Mr Beast hadii basaan warkaaga yahay oo leedahay studio-ga aniga ii dhaxyaala microphone-ki iyo camera-da ii dhaxta studio-ga microphone-ki camera-da ii dhaxta la dhax socdaa tiri waa ka haruuri macnaha Speed wuxuu yiri Mr Beast wuxuu yiri aniga waxaan rawrinaa noqdo bini aadankii ugu horeeyay ee bilin gaara Ronaldo marka dad isu doorin kartid hadii kala aad wal rabna Ronaldo wuxuu ka sheegay bis rabko nin oo dhahayo nin oo khabri aan dhaxgala dhahayo oo ma gali karo macnaha khabri maalin aan sameysana aan dhaxgala cirkaas aan agteeda macnaha aan muuqaalka soo duuba meel dheer aan kora waa ka tagay marka Ronaldo maalin loo baas marka Ronaldo Speed xataa waa ka fakawaa Speed marka Speed la keeno calaamad taqana meeshii dhanbo kolba Speed la afkaas ma qabsanayo guriga Ronaldo khayl uu ka dhigay habeenkaayo marka waka asagu wuxuu ku soo shacbaxay Ronaldo iyo difaacitaankiisa iyo markaas Ronaldo difaaco oo Ronaldeeyo marka weeyaan ninkii ku yara waa Ronaldo ayuu la kulmay marka waa mid kale AC Milan in saacadu u badbaaldegaysa 150 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay teamkan waa teamka kaliya ee Kamal Daariga aan soo taageeray number 1 taageere aan u noqday forever AC Milan Rossoneri waliba waa nimanka labaad ee taariikhda Champions League ugu badan haysta weeyaan runtii walow midaas sida Arsenal kale ugu magaalada ugu faanaan ama ugu joogan war anaga hadda ka hor ambiitina Real ku qaadnay saana hata u dhigi jiray ama ugu faani jiray reer malaha hadaan nahay war anagu kooxda labaad ugu qaadida badan Champions League aan udhayni Bayern Munich iyo Liverpool ayaan hoos naga soo galgaleen todobada ama macnaha Milan hadda uma muuqato Milan Champions League todoba ka tagi doonto mara Madrid waxa la isla joogay 9 iyo 7 la joogay 9 iyo 7 la joogay ka war intuu Ancelotti waxaan imaadeen oo baahash 10 laga dhigo timiko saas sii socon baahash marka marka dadkan Rossoneri waxa weeyaan teamkan waxa weeyaan marka team weyn historic walow Inter Milan Serie ay qaaday Milan laga batay walow Milan inay yiraahdeen Inter koob Juventus ka hadeen baa idinku jira amal marka waxa weeyaan taas waa taa marka Milan waa la hambaleynayo ninkan ma taqaana ooynaya waa Oscar waa ninkii shooga dhaliyay waa nin laaciba oo u saarneed oo Chelsea kala kicinaya ay hal mar sida bariga Sacuudi loo aadaado Shiinaha kacsanaa Shiinaha la baxay ninkii Chelsea ula mustaqbal weyn loo arkay ninkaas inuu Yurub ka xamaanan doono laakiin ninkii waxa weeyaan wuxuu galay Shiina 8 sano oo hadda Shiina uu joogay saacad ugu dambeeyay ayaa la macsalaamay waana tuu ooynay ka 77 gool ayuu dhaliyay Brazilianka intuu Shiinaha joogay 140 kuna wuu caawiyay ninkaas wuxuu ahaa ninaan caadi ahayn waqtigiisii kooxda Chelsea xataa la qaaday Premier League 2016 ayuu dhanka xaga qabtay runtii
سوسي حسن جير ويان إمن كنيكا حتى جيرس مركو وقت كحدي مورينيو بريمير ليج بولا قاضي sidoo kale liga cup Europe League buu ku guuleystay waqtigiisii bridge hatta kooxdii Conte 2017 qayb yar ayuu kaga ciyaaray ninkan saacad ugu dambeeyay dhalinyartii ayaa ninka macsalaameysay bariga lacag fiican ayuu halka ku aaday 20 milyan ayuu sanadkii ka qaadanay marka sida maanta Sacuud u kacsan jeena u kacsanaan jir laakiin ninkan runtii waxyaabi yaab kala banooniga ahayd runtii nin qatar badan buu ahaa Oscar ya xagaa qabtay saacad ugu dambeeyay dhalinyartii macsalaameeyay bari hatta linkada meelaha ku dambeeya nabadgelyo